intaan doqon soo kaxaysto xantaada dareerin maayo dadkii adii ka xumaana damiirku iraacin maayo halkaas waxaan u idhi dad tiro badan oo ka xun nolosha qofka biniaadanka waxay dadku badanaa ay ku hawlan yihiin ama ay isku mashquulinayaan in ay wax ka ogaadaan qof walba noloshiisa. qof aan waxba looga dirsan waxay jecel yihiin inay wax badan ka ogaadaan, haba ka ogaadaan qofka inuu noloshiisa waxa ay tahay iyo xaalkasu meesha marayso. laakiin dhibka ugu weyn waxaa weeyaan waa kula jire kaa jire. dadka marka waxaa idiin sheegayeen dadka ma wada aha, horta ma wada xumo, dadka biniaadanka oo dhan yacni kulligood ma wada xumo, laakiin shakhsiyaad xun baa jira. shakhsiyaadka xun waxay qariyaan dadka intooda wanaagsan. markaan saa idin leeyahay run ahaantii waxyaala badan oo soo jooga aniga taariikha badan waa hayaa, waayo aragna waana aday Soomaaliyeedna waa wax badan oo aan dareemayna waa jira. qofka kula tashanaya saaxiibka aad ka dhiganayso adiga horta ma ogaan kartid, laakiin cadowgaaga koowaad waa saaxiibkaaga koowaad. hadalkayga hooya si fiican u dhegeysta. cadowgaaga koowaad waa saaxiibkaaga koowaad. sidee saaxiibkaaga koowaad cadowga koowaad ku noqday? wuxuu ku noqday wax u qarsoon. horta waa qofka keliya oo xogtaada og, waa qofka keliya oo informationkaaga hayo, waa qofka keliya oo maanta wax walba aad u sheegantid adiga oo ka fiirinaya, yacni aad ku nafista isle. nafiska aad nafisaysid buu kaaga faa'iidaysanaya. qofka xaaladda kaaga faa'iidaystaan ka wadaaba qof. run ahaantii qofna qof ma raac, yacni qofna qof noloshiisa inuu raaca xaqu ma laha. laakiin shakhsiyaad waxaa jira dadka noloshooda raaca sidii ariga u raaca. saaxiibkaaga koowaad hadduu xun yahay noloshaadan wax badan bay ka halaabaysaa. saaxiibka xun tuur, saaxiibka xun fogee, saaxiibka xun noloshaada ka saar. weligaa saaxiibka xun iska ilaali. haddii saaxiibkaaga kugu xumaado noloshaadan wax badan baa ka khaldamay. saaxiibkaaga hadduu dhiirigelin lahayn, hadduusan farxad ku siinayn, hadduusan markii ay kugu xun tahay ku garab qabanaya saaxiib maaha. waxyaala badan lagu ogaadaa saaxiibka wanaagsan. saaxiibkaagu waa midka markay adag tahay. friend indeed is a friend in need. halkaasaa idinkugu soo qorayaa oo loola jeedo saaxiibka dhabta ah waa saaxiibka xaaladda adag marka ay ku haysato. tani UK saaxiib ku leeyahay rag badan saaxiib laakiin mar walba anigu saaxiibka maxaan ka fiiriyaa markaad baahan tahay, markaad duruufaysan tahay, xataa saaxiibka marka ay yacni xaaladda kugu adkaato aad u warrami kartid oo aad ku nafisi kartid waa saaxiib wanaagsan haddii uu sirtaada qarinayo. sheekada waxaan kaga soo wadaa intaasoo dhan idinkuu soo baarkeynayay in aad ogaata kala garataan saaxiibka xun oo cadowga ah iyo saaxiibka wanaagsan. saaxiibka xun waxaad ku garataa mar walba wuxuu taadu wuxuu ka hormarinaya tiisa. mar walba saaxiibka xun waa lagu yaqaanaa wix asaga u gaarka ay arrimaha asaga u gaarka ah wuxuu ka hormarinaya taada. saaxiibka xunkaas lagu ogaadaa. saaxiibka xun waxaa lagu ogaadaa mar kasta wuxuu isku dayaa inuu kaa niyad jabiyo horumar kastoo aad samaynahay. saaxiibka xun waxaa lagu yaqaanaa mar kasta wuxuu isku dayaa inuu kaa mashquuliyo horusocodkaaga iyo waxyaalaha adiga danta kugu jirto. waayo wuxuu is leeyahay meeshaada taaganta hadduu kaa hormaro asna ku dhaaf. waa saaxiib xun. haddii uu ku arko saaxiibka inaad la tartamayso, haddii competition saaxiibka idinka dhexeeyo, noloshu sax kaa saaxiib maaha. saaxiibka waa midka aan kula tartamina adiga ku hormariyay guusha. kala gara saaxiibka xun iyo saaxiibka wanaagsan. kala gara nolosha mid adag. kala gara saaxiibka aad naftaad u baahan tahay iyo saaxiibka is naftaad u baahan. waa la tuuraa wax kasta oo xun waa la iska tuuraa. saaxiib kasta oo xun waa la iska ilaawaa. saaxiib kasta oo xun nolosha laga saaraa. saaxiib kasta oo xun waa la iska muusaa. waa lus, waa nolol hoos u dhac waay. markaan saa idin leeyahay qof gaar aan ulama hadlayo, laakiin si guud baan idinkugu sheekeynaya maadaama oday Soomaaliyeed aan ahay waxyaala badan adiga iga faa'iidi kartaan. waxaan si gaar ah ula daaramayaa dadka Soomaaliyeed halka iga daawan doona barnaamijkan haddii kusoo gaaro intaasna soo daawatay
fadlan share garee like garee subscribe noo saar oo aanu dhaqdhaqaaqaano maanta aan aragno bal waxaa saaxiibtinimo ii siin lahayd. hadda ka hor baa waxaa la yidhi nin baa wuxuu yidhi sirta dumarkaan gaarayaa maanta, sirta dumarka baan soo afjarayaa buu yidhi, sirta haweenkaan soo afjarayaa maanta. waxaa waaye shaqadeedu maanta wax kala maaha inaan dumarka soo afjara sirtooda. sirnaaga lama sargaaroy, sirnaaga saana waayey baad igu badiseene maanta anaa soo afjaraya. wuxuu safar dheer u galay oo caagadiisa u biyeystay inuu soo afjaro sirta dumarka. wuxuu wax badan warkooda raadinayey, informationkooda raadinayey si uu u ogaan lahaa, waxun uga baran lahaa sirta dumarka. wuxuu ballan ku qaaday ama go-aan ku gaaray inuu meel uga soo haro sirta haweenka. wuxuu u saxuduubtay ama u kallahay inuu meel un kaga soo haro ama un wax un ka soo ogaado sirta dumarka, maadaama la yidhi sir naageed lama sargaaro. ninka saas uu ahaa wuxuu sameeyey reerkoodii uu ka tegay, faamilkoodii iyo meel cidlaa buu gatay. wuxuu yidhaahday maanta arrin baan u baxayaa, ha la ogaado, arrin iyo khaasaan u baxayaa. arrintaasna markaan soo dhammeeyo baan idinla wadaagayaa. inuu reerka wakaas nimankii odayaasha warka guri ugatay. wuxuu yidhi muddaan soo maqlaanaya, xeero oodkaca iyo jeeg oodkaca baan ka wadaa iyo tabad suba ku jiro iyo caagadiisu isku biyeysta. wuxuu yidhi maanta waan baxayaa. safar uu ahaa usii ordayaybu wuxuu kasoo duldhacay gabar aad u qurux badan oo joog iyo jamaal leh, oo ishii qabata aysan ka jeensanayn, oo dadka dhan markay arkaan yacni ay la ashqaraarayaan quruxdeeda. markaasuu gabadhii kusoo leexday. gabadhii geela xoolaha waraabinaysay, ariga waraabinaysay buu kusoo leexday, iyadoo ceelkii dawliskii ku jidha oo saas mataqaanaa ka waraabinaysa geeli carigi. wuu kusoo leexday, wuxuu yidhi assalaamu calaykum. uu soo dhawaaday, way ka cabsatay xitaa ma waxu gaarsiiyaa xabsibi, yani way ka yar cabsatay. ninkan dafdafle muxuu ahaa hoos kaa soo galay, way ka baqday. waxay tiri maxaa khaldan, war naga fogo, waa kasii fogaatay. walaal waxba ku yeeli mayo, asbaridino mataqaanaa asbaalkeyno see tahay xaaladda ka waran. wuu usoo dhawaaday, maxaa rabtaa bay ku tiri. may walaal waa isalaam wax dhiba ma wado, walaalkaaga Soomaaliyeed baan ahay, see tahay. waa fiicanahay waa gad walaalay, arrin baan kaa rabaa. maxay tahay? sirta dumarkan inaan silgaari rabaaye walaalay waxay iga caawisaa sidee ku silgaari karaa sirta dumarka. cashar xataa waxun iga sii, cashar yarna allaha ka dhigay, bal waxun iga sii. markaasay ku tiri sir dumarka inaa ogaati may rabta. haa. qayla af ku shubata. waa waraay isku soo baxoy. meeshu waa meel tuulo yara oo xoolaha ku cabaano shaaha iyo lagu cabo, iska tuulo yar oo garanaysaa, meel yar iska tuulaayo, dadku ay harsanayaan, goor la harsanayo oo dadkii ay ilkaas kaga jiraan. qayla af ku shubata. waa waraay, waa soo baxoy, soo cararoyda. dadkii baa dhag soo orday, ula ii soo qaatay iyo xisdhaheen balaayaa socda. sinaa walaa waxba kuma geysane, maxay tahay dadkan aad igu soo xiirisay, aad igu soo fasaxday. say tiri waa kuwii dili lahaa, inay ku dilaan baa ma rabaaba. hadda walaal maxay ii dilayaan oo aan u geystay? waa maxaan dhibkaan u geystay? anigu waxba kuma geysan, sir baan ku weydiinaya. dhibka aad ii geystay oo ii geysaneen oo ii dilayaan maxaa waa ii sheeg, maxaan kuugu sameeyey? hadhowbay saasay u fiirsa, abaar bay aamusnayd. isla markii way fakartay, wadaantii ay haystay intay ceelka darsatay bay dhakada iska saareen, shalalala, oo iyadii dhan isqoysa. dadkii weli ma soo gaarin, ninkoo soo ordaya, burarkii weli baa lasoo wata. markaasuu yaabay, naagta maxaa ka khaldan, dhibkaan muxuu yahay, xagee wax ka khaldayin busi. dadkii say usoo ordayeen bay naagta lama hadlinayn, waa naag qurux badan ilaa waxa dumar waa la farxumay isdhahan bay ul nafta kaga qabtay. say tiin okaadiya maxaa ninka u dilaysaan? soo jeesatay.
dadkiiba hal marka wada fuqay attentionkiiba hal mar soo jeediyay naagtii la wada fiiriyay maxaa khaldan maxaa dhacay ninka maxaa u dilaysaan buu tiri maxaa miya ammaanayaan dila anu waa waleeda aad maqlaysaan baan maqasheene maxaa ninka u disheen anu idil ninkeeda ma oran كان عيل كاسان كل عيل سجاني بالبادية سجان عيل كي صار عيل كهدو سني كمان إلهي يقول بحنا هنا واحد لا ما بعرف كم ماشي بدك يعني فرحت دي واحد نكي ونايتين إيكو هاي ما شاء الله جيسي اللي باتاي حاجة باتاي ما شاء الله باتاي إلهي أمرك مركي بهوش بس بدش موقت وصلوا بعد الحكي محاد كوضع سلام سيترسات دمرك أترادنيس وطن سير روان بيكو سمينيا دي هدي دونان وحوي وكاواليان هدي روان برواغي بشوش بخصوصيني مركز سر ناقد لقى مسل قارة وارن سر ناقد لقى مسل قارة حقيق وطاس نبا واحد يحوالي وحو كلاها هل حلا iyo xoolo halka hal buu ka lahaa keligii markaasuu gabar jeclaaday gabar buu aad u jeclaaday wuxuu yidhi gabadhan masha allah qurux badana gabadhii reerkoodii wuxuu la hadlay aabaheedu la hadlay wuxuu yidhi aabo xoolo hal baan ka leeyahay buu ku yidhi hashana waa bixinaya gabadhaad yarad baan u siinayaa iga qaado okay baa lagu yidhi gabadhii ninkaas buu ka qaatay nin saaxiibkiisa u yimid wuxuu ku yidhi war hebelow maxaa ku dhacay halkii hal aad xoolo ka lahayd baad bixisay suu yidhi 2 kor ujeeda 4 hoos ujeeda baan ka doorbiday 2 kor ujeeda 4 hoos ujeedaan ka doorbiday qofkii caqli lagu fahmi karaa laakiin idinka idinka sugaya jawaabta